markaan Shiina ka soo dhigtay masterkii waxaan runtii master ka dhigtay oo aan waxbarasho ka helay wadamada Yurub qaarkood marka Ingiriiska iyo meesha Canada iyo South Africa ku yaala South Africa oo kale Pretoria iyo Jarmalka oo kale waxay leeyihiin مثلا branch DAAT oo kale iyo branch kale East Africa oo uu talagalay leeyihiin badan oo kale ka jira program isagana la yiraahdo KP knowledge Orange program marka runtii fursado badan baa jira waddanka Ingiriiska oo kale saahan leeyahay inuu Japan la yiraahdo Soomaalida xariisan karto xilliga ama foundation soo dhawaad saaxiibayaal maanta barnaamijkeena iyo muuqaalkeena wuxuu ka duwan yahay barnaamijyada hore iyo muuqaalada hore aad boggeena kala socoteen maanta waxaan fiireynaa mas'ala falanqeynaynaa ama waxa weeyaan wareysi xog buuxda waxa weeyaan ka soo gudbinaynaa habka loo helo fursadaha waxbarashada ee waddanka dibadiisa gaar ahaan Yurub waxaa jooga Cabdishakuur oo kamid ah dadka fursadahaas soo helay ama ka soo faa'iideystay arrimahaasna ku xeel dheer wax badan kala socda marka hawshaas asaga baa wax warbixina inuu soo gudbinay Cabdishakuur soo dhaw iswaad maasantahay ku dhawahay channelkaaga waana ka warrami doonaa khibradeyda iyo wareysanaysid aad u maasantahay Cabdishakuur wuxuu kamid yahay dadka wadankii wax ku soo bartay ilaa heer jaamacad ku soo gaaray kadibna waxa weeye dhameystirka waxbarashadiisa ula soo hayaamay wadamada dibadda gaar ahaan Yurub marka arrinkaas wuxuu kala socday soo asagoo fursadaas ku soo helay sida ka jira wuxuu naga siinay xog waafi oo dhameystiran Cabdishakuur salaam marka la barnaamijka adamaas asanta Yusuf sida sheegtay magaca Cabdishakuur waddanka Soomaaliya ku soo bartay dugsiga sare ilaa maaragtay jaamacadii heerka koowaad bachelor degree magaalada Boosaaso jaamacadii Muqdisho farceedii wixii ka dambeeyay intaasna waxbarashadii masterkii wixii la xiriiray waxaan ku soo dhigtay waddanka dibadiisa Shiinaha iyo Ingiriiska Cabdishakuur markii laga soo tago tii ku soo qaatay Boosaaso oo macnaha way jaamacadii master bachelorka ahayd waxay la tahay master koowaad ma waxa ku diyaarsay waddanka gudihiisa mise waxa uu master koowaad waxa fursad u heshay inaad waddanka dibadiisa ku diyaarisid isbaad u maasan tahay أنا مستركي وهري راح كدياري ودن دبديسا قارن ودن Shiinaha sababtoo ay tahay xilligaas jaamacadda dhammeeyay waxbarashada masterka ay waddanka laga helo aad bay u adkeyd oo iska yarayd programyada la helo waxay iska ahaayeen jaamacado online oo waddanka dibadiisa oo jaamacadaha waddanka ku yaala marka isla shaqeeyaan oo si maaragtay online ay lagu dhigto inta badan marka taas waxay keentay maadaama aan rabay waxbarashada sii wato oo master sameeyo maadaama already aan marka hore shaqeynayay oo khibrad shaqo aan haystay waxaan waxbarashada sii wado marka tan ku sheegay marka jaamacadii heerka koowaad dhameeyay marka hore aan khibrad shaqo lahaa waxaan doonayay waxbarashada sii wato master sameeyo waddanka way adkeed in laga helo marka saas keentay inaan xareysto deeq waxbarasho aan raadiyo marka waxaan ka warhelay inay jiraan deeq waxbarasho oo dalka dibadiisa oo aad ka faa'iideysan kartid oo cidna soo marina iska xareysan kartid oo aad ku guuleysan kartid marka waxay noqotay inaan xareeyo dhowr scholarship ama deeq waxbarasho kala duwan marka adigu kuwana waxaan soo gaaray wareysiga iyo shortlistiga wax la yiraahdo kuwana waa la soo diiday marka waxaan adigu chance u helay waxbarashada masterka waddanka Shiinaha waxbarasho deeqa kulligeed oo jaamacadda laga bixinayo caafimaadkaaga lagu qabo oo maaragtay lacagta ku noolaan lahayd lagu siinayo sida shaqada kala markaasaan ku soo bartay masterkii koowaad waxaan rabaa inaad wadaago bangi online aan isticmaal bangigan awood wuxuu leeyahay inuu sarrifo 40 lacagood oo kala gedisan haddii aad dadka safra ama qorshaha safarka ugu jiro waxaan aaminsanaa boqol bangi inuu ku anfacayo bangigana furanaysaa kaarkooda dalbanaysaa kadibna lacagta u baahantay inaad isticmaashid bangigooda ku shubaysaa saasana kaarkooda ku isticmaalsaa 40 wadan in lacagooda sarrifaan mid kamid ah haddii aad joogtid ma baahan lacagta inaad meel kale ka sarrifatid automatically bangigana ku
sarrifaya oo isticmaalisa. Xarunta weyn waxay ku taalaa UK. Bangigan oo bangi boqolkiiba badanaa dadka internet ka shaqeysta baa isticmaala. Midna hadda aniga UK baan joogaa, haddii aan rabo inaan Yurub aado oo kale ma u baahna lacag euro waxaas inaan qaato. Bangigan isticmaalkiisa ugu filan, asaga automatically ii sarrifaya lacagtii oo weli wuxuu ku sarrifaya qiimaha ugu hooseeya aan hubo boqolkiiba inaad ku qancaysan. Sarrifka ugu fiican suuqa buu ku siinaya. Haddii Yurub aad joogto wadamada Scandinavian-ka qaarkood euro laga isticmaalo, lacagta koronta euro laga isticmaalin, waa tabto kale. Haddii aad u socotid East Africa gaar ahaan Kenya, shilinka xataa waxa uu ku sarrifaya saaxiibiyaan. Sidoo kale haddii u socoto wadamada Carabta sida maartay Sacuudiga ama Imaaraat asna waa sidoo kale. Sidoo kale haddii u socoto wadamada Asia sida China kala ganacsi loo aado, waa sidoo kale asaa ku sarrifaya, iyo Indonesia oo badan dad dalxiis u aadaan oo kale. Marka bangiga linkiisa waxa ka helaysaa qaybta description-ka iyo qaybta comment-ga, halkaas ka raaci kartaa. Okay, Cabshir waa maasan tahay. Markii hadda ay noqoto deeqaha hadda waxbarashada China nooga sheekeynay sidoo kale ma wax macnaha sanad kasta fursadooda ama chance kasta la helo miyaa bas wax way xadidan yihiin. Deeqaha waxbarashada inta badan masterka wadanka Shiinaha iyo wadamada kale intooda badanba waa kuwo furan oo sanad la ah, oo sanad kasta waxay leeyihiin xilli ay furmaan iyo xilli ay xirmaan. Marka waxbarashadana waan ka faa'iidaystay marka iyo kuwo kaleba waa sanad loo iska furan yahay, iska socdaan oo sanad kasta waa la xareysan karaa, laakiin waxay leeyihiin waqti ay furmaan iyo waqti ay xirmaan. Marka Shiinaha oo kale inta badan sanadka bisha koowaad ilaa bisha saddexaad intaas ugu badan yihiin ay furan yihiin. Waa laga yaabaa kuwo kale oo maaragtay partial ah ama jaamacadda laga bixinayo noloshaan iska bixinaysid oo yani scholarship full aan ahayn in ay jiraan oo xagaag oo kale la helo, laakiin kuwa deeqda buuxda ama full scholarship-ka waxay furan yihiin bisha koowaad ilaa bisha saddexaad oo kale sanadka saddexda bilood ugu horeysa. Marka hadda aan fiirino kale kuwaas China scholarship-yada laga helo kale qofka raba inuu xariisto kale shuruudo noocee baa ku xiran. Haddii ay tahay master dabcan waxa laga rabaa inuu qofku shahaadada koowaad sameeyay marka hore oo bachelor ka ahayd. taasi waa mid dabcan waxaa kaloo muhiim qofku inuu leeyahay wuxuun khibrad shaqo iyo cilmi baaris oo kale research iyo inuu qof maaragtay wax qori kara yahay oo qoraalka ku fiican maadaama masterkii markii la soo gaaro badanaa imtixaanaadku kale waxyaaba qoraal iskaga badan yihiin bog yara oo la qoro cilmi baaris uu jiro marka maaragtay jaamacadaha sii dhameynaysid jaamacadaha oo kale qaybtooda waxay kugu xujeynayaan in Englishka oo kale haddii aad ka imaanaysid wadan afka looga hadlo uusan ahayn English inaad maaragtay haysatid shahaado Ingiriiskaaga cadaynaysa oo shahaadooyin caalami ah jiro afka Ingiriiska oo مثلا TOEFL oo kale barnaamij la yiraahdo iyo IELTS iyo marka waa shahaadooyin standard ah oo caalamka oo dhan laga aqoonsan yahay. Marka shahaadooyinkaas kale waa muhiim inkastoo wadamada Asia sida Shiinaha iyo Turkiga iyo aysan khasab ahayn, laakiin haddana waxyaabaha kuu keeni kara inaad guulaysatid bay yihiin oo lagu tixgelinayo. Marka waxaan kusoo koobi karaa shahaadadii koowaad luqadda Ingiriiska waa iyadana muhiim ah iyo khibrad maaragtay shaqo iyo haddii lahay ku idmayo cilmi baaris midkood inaad leedahay qoraalka ku fiican tahay. waxaa kaloo muhiim ah jaamacadaha xariisanaysid oo ka tirsan programka scholarship-ka ah in supervisoradooda ama professorada ka shaqeeya kuwa maadada aad doonaysa inaad dhigatid ka shaqeeya cilmi baarisaha ka sameeya inaad la xiriirtid oo email u dirsatid shahaadooyinkaagii iyo khibradaada iyo gudbisid oo aad ka codsatid inay maaragtay ku aqbalaan oo supervisor kuu noqdaan. marka haddii aad ka heshid supervisor inay kuu noqdaan waxaa la yidhahdo acceptance letter. markaas iyaduna way ku caawinaysaa inaad ku guulaysid. intii lagu gudi jiro xareynta jaamacadaas oo kale hadda waxaa sheegtay macnaa inaad si gaar haddana ugu sii baahan tahay inaad maaragtay dadka supervisorada kale aad la xiriirto oo kale. marka dadkaas xiriirkooda oo kale see ku helaysaa marka koowaad scholarship-yada waddanka Shiinaha oo kale tusaale ahaan wuxuu leeyahay waxa la yidhahdo Chinese Scholarship Council or CSC iyo wuxuu leeyahay scholarship-yo kaloo la yidhaahdo مثلا Belt and Road Scholarship. marka jaamacadaha waddanka ee dowladdu leedahay oo dhan ayaa scholarship-yadaas bixiya inkastoo Belt and Road jaamacado gaar ay bixiyaan laakiin CSC jaamacado dhan baa bixiya. marka jaamacadda adiga waxaad samaynaysaa maadooyinka aad markaa rabtid baa waxaad baaraysaa jaamacado bixiya. marka waa inaad online-ka aada internetka google-kaaga iyo gashaa oo aad soo raadaysaa jaamacada maadada bixiya. markaad soo heshid ayaa waxaad tegaysaa marka jaamacadda website-keeda iyo haddii departmentiga ama iskuulka gaarka ee maadadaada bixiya ee jaamacadda ka tirsan website qayb gaara leeyahay
فتجيسا حباريسا مركم معلمين تدقى maadooyinkaaga marka emailkooda iyo khibradooda iyo shahaadooyinka haystaan iyo cilmibaarisa ay sameeyaan iyo xadan website-ka ka helaysaa marka waxa soo qaadanaysaa emailkiisa iyo magaciisa email baa u qoraysaa marka waxa leedahay waxaan ahay ardayga la yiraahdo hebel waxaan xiiseynayaa inaan jaamacadan maaragtay imaado wax ka barto waxaan arkaa inaad tahay maaragtay professor wax badan ka faa'iidi karo oo waxaan doonayo marka inaan barto u leh khibrad oo aan wax ka baran karo adiguna de marka aad muujiso inaad tahay qof dadaal leh oo khibrad leh oo maaragtay rabo inuu guuleysto markaas haddii uu kaa helo CV-gaaga iyo waxa u sheegtay waxa laga yaabaa inuu kuusoo jawaabo uu ku yidhaahdo waayahay waraysi wax kula yeesho ama sheeko yar uu ku aqbalo marka qaarkood uu ku diidayaa sababta arday badan baa soo xareysanaysa markuu ardaydaas kale eegayaayo uu isleeyahay ugu fiican yihiin ama maaragtay way ugu sareeyaan xagga dadaalka iyo aqoonta iyo khibradda ay leeyihiin buu ka xulanayaa inta aad sharxaadaad u gudagelin ka hor waxaa xustay barnaamijka deeqa waxbarashada China inuu qaybsan yahay 2 qaybood kuwaasoo kala CNC iyo Belt and Road marka labadaas bal wax yar faahfaahin naga sii waa maasan tahay wadanka Shiinaha taban scholarship badan baa ka jira laakiin labada ugu waaweyn waa CSC iyo Belt and Road CSC China Scholarship Council saas weeye marka waxa loola jeedaa waa wadanka Shiinaha qaybta waxbarashada qaybta u qaabilsan deeqaha waxbarashada ee la siiyo wadamada banaanka ka Shiinaha marka waxay bixiyaan undergraduate and bachelor degree waxay bixiyaan masters waxay bixiyaan PhD marka bachelor ko kala adag tahay heshiido qofku markuu dugsiga sare soo dhameeyo badanaa inuu asagu xareysto waxbarasho scholarship wadanka ka xareysto iska adagtaa marka qaybtaas waxa la siiyaa dawladaha marka dawladaha gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ayaa waxay sameeyaan ardayda dugsiyada ugu sareysa oo kale soo xulaan oo siiyaan laakiin masterka iyo PhD-da iyo qofku isaga si gaar ah u xareysanaya inta badan marka CSC waxa weeye waxa loo soo gaabiyay China Scholarship Council marka waa Shiinaha waxbarashadiisa qaybta u qaabilsan inay deeqo waxbarasho siiso wadamada kaleeto ardaydooda qofka saan xareysan karo adduunka dhan bay u furanta Belt and Road laakiin waxa weeye waa qayb kooban oo jaamacadaha qaybtooda ayaa bixiya scholarship-kan wuxuuna ku xiran yahay la shaqeeyaa siyaasadda dhaqaale maaragtay istaraatiijiyadda dhaqaalaha Shiinaha ee la yiraahdo Belt and Road Initiative Shiinaha wuxuu leeyahay siyaasad dhaqaale oo waxa weeye ugu talagalay badeecadiisa inuu ku gaarsiiyo caalamka kale oo dhan marka wuxuu sameeyaa wadamada maaragtay meelaha istaraatiijiga ku yaala wuxuu sameeyaa ku dhisaa dekado iyo aeroporto iyo ugu talagalay in badeecadiisu soo marto oo wadamada kale uga sii gudbiyo marka wadamada ku yaala maaragtay meelaha istaraatiijiga ah ee ay marayso siyaasaddaasi ay target gareynayso sida Soomaaliya, Pakistan iyo Oman iyo dalalka la midka ah iyo Tanzania ayuu siiyaa oo wadamada kale oo ka sii galayo badeecada uga sii gudbinayo marka Belt and Road kaas weeye sidoo kalena de jaamacadu waxay bixiyaan scholarship iyo maaragtay yar oo partial ah oo ay ka bixinayaan jaamacadda بعدين هذا nolosha iyo isku qabtid marka kuwaasi waa kuwa xiliyo badan iska furan oo u baahan in aad adigu raadisid meel kale ka raadisid waxaan ku diiday markii qofka uu China tago kale uu ku guuleysto full scholarship oo kale oo dawladda maaragtay de waxbarashadiisa caafimaadkiisa noloshiisa ay ka horgareynayso qofkaas access ma u leeyahay inuu maaragtay shaqeeyo oo maaragtay isku day karo macnaha de siyaabo kale oo noloshiisa macnaha wax soo gal uu ku siyaadin karo Shiinaha xagga shaqadu iska adag tahay marka arday tahay international ah wadanka runtii de luqadiisa iyo nidaamkiisa wixii dhan baa ka duwan wadamada kale marka qofku wuxuu sameyn karaa waxyaabaha qaybtooda oo kale tusaale ahaan hadduu joogo meelo warshadiya ka dhow yihiin ama uu yahay qof ganacsiga waxaa ka shaqeyn jiray oo dad ku xiran oo macaamiil leh wuxuu sameyn karaa inuu ka shaqeeyo maaragtay waxa la yiraahdo shipping-ka oo uu sameeyo dadka iyo shirkadaha de wadanku ka yimid iyo meelaha la midka jooga inuu warshadaha kale xoog soo iibiyo oo sida lacag kaga qaato qof iska dulaalo kale yahay waxa kale oo la helaa maaragtay macallinimo iyo noocaas oo kale Englishka ardayda Chinese ka loo dhigo marka shaqooyin badan runtii ma jiraan shaqooyinku iska yihiin
marka shaqooyinkaasoo kale dowladdu uma ogasho qofka inuu qabsan karo oo dhaqaale uu ka sameyn karo dakhli ka soo geli karo inkasta waxa weeye dowladuna way ku ogashahay maaragtay wax dhiba runtii kama jiraan arrintaas markay noqoto inaa fursada heshid oo kale wax option oo kala doorasho ma leedahay mise markii meeshaas dowladda ku go'aamiso oo baax loo geenaya amay jaamacadda dhiganaysid akooda scholarship meesha ka heshay ya haddii iyo deegaanka markaa ku noosho kale haddii xataa maaragtay caqabada kale kulantoo kale ay noqoto maaragtay inaad meel kale doorbid oo kale waxaa u baahan tahay inaan fahmno scholarshipka noocuu yahay sida hadda soo sheegay hadduu qofku yahay qof dhiganaya jaamacadda darajada koowaad bachelorka la yiraahdo ama undergraduate-ka waxaa la sameeyaa deeqda waxbarasho waxay shiinuhu ku wareejinayaan wasaaradda waxbarashada ee wadanka ardada laga keenayo marka kabacdi waxay sameynayaan ardaydiiba dugsiyada sare laga soo xulayaa meesha loo diraya marka dowladda go'aaminaysa meesha tagaysid marka way dhici kartaa inaad iska bedeshid oo haddii maadadii aad ku qanacsanayn waxyaaba noocaas kale laakiin marka aad tahay arday master ama PhD dhiganaya way adag tahay inaad samaysid arrintaas sababtoo tahay jaamacad gaar ah ayaa kusoo aqbashay marka hore scholarship ku siisay marka inaad iska bedelato jaamacad kale iska geshid oo scholarship runtii aad bay u adag tahay waanaad iska daysaayo barnaamijka waxbarasho aad gashaayo maanta aduu iska bixinaysid ashkura maasan tahay si barnaamijka China iyo hawlihiisa umuurihiisa aad nooga qabtirtay haddii aan dhanka kale isla dhugano fursadaha ka jira Yurub ayaga bal dhankooda ka waran maxaad xooga oo noogu siyaadin kartaa isbaa maasan tahay sidoo kale markaan Shiina ka soo dhigtay masterkii waxaan runtii master ka dhigtay oo aan waxbarasho ka helay wadamada Yurub qaarkood marka